dufcadda tobnaad ee kulliyadda caafimaadka Hon faraceeda magaalada Wardheer ayaa waxaa ka qalin jabiyay arday tiradoodu dhan tahay 160 arday oo bartay culunta kala duwan ee ay kulliyaddu bixiso 160 arday oo bartay culunta kala duwan ayaa ka qalin jabiyay kulliyadda gaarka loo leeyahay ee Hon laanteeda magaalada Wardheer kuwaasi oo bartay culunta caafimaadka ee sida clinical nursing iyo BSc nursing darajadooda kala duwan diploma iyo degree culunta xisaabaadka accounting and finance heerarkooda diploma ayaa ka qalin jabiyay magaaladaasi waxaana munaasabadani ka soo qayb galay mas'uuliyiinta maamulka gobolka Doolo iyo kuwa degmada Wardheer maareeyaha kulliyadda Hon maareeyaha cusbitaalka magaalada Wardheer waalidiinta ardayda iyo marti sharaf kale gabagabadii mas'uuliyiintii kala duwaneed ee ka soo qayb gashay xafladan ayaa khudbado hambalyo iyo dardaaran ah ka soo jeediyay madasha iyagoona ardayda qalin jabisay kula dardaarmay inay noqdaan kuwa bulshadooda uga faa'iideeya cilmiga ay barteen iyagoona ugu dambeyn abaalmarino la guddoonsiiyey ardayda kulliyadda ka galay kaalmaha hore dhinaca dhibcaha iyo dadaalkii ay muujiyeen intii ay ku guda jireen hayaankoodii waxbarasho ugu horreyn guddoomiye ku-xigeenka gobolka Doolo mudane Cabdixakiim Faarax Jibriil iyo sidoo kale maareeyaha kulliyadda Hon ee faraceeda magaalada Wardheer mudane Najiib Xasan Jaamac iyo sidoo kale maareeyaha cusbitaalka guud ee magaalada Wardheer Dr. Cabdinaasir Cali Abshir ayaa warbaahinta dowlad deegaanka Soomaalida SRTV madashaasi uga warbixiyay munaasabadan qalin jabinta. waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta qayb ka ahay qalin jabinta ardaydan oo gurigoodii intii waxbarasho loogu keenay oo waalidkood la soo dadaalay oo iyagu dadaal badan sameeyey haddana maanta ka qalin jabinay gurigood ku dhex qalin jabinay waa farxad aad waxyaalo aad loogu farxo weeyaan maysan dhici jirin hadda ka hor ama xilliyadayadii iskoolka markii meelaha lixaad la gaadhaa waxaa la aadi jiray qabri daarre dhagax buur jigjiga maanta gurigiina waa laydinku keenay waxbarashadii ardaydii markii gurigaa waxbarashada lagu keenay waan ku farxsan inaad ka faaidaysataan waxaad hadda maanta taagan tihiin waddadii baa soo joogsateen mustaqbalkii way ka horeeya waqti badan baa idin hadha waddada aad soo joogsateen meesha barbilowgii waddada ama mustaqbalka caalamka inaad wax la qaybsataan yaa taagantihin waxaa la rabaa marka inaad noqotaan arday competent leh tartan suuqyada caalamka ka tartami karay intaad dadaal sameysaan yaad caalamka ka tartami karaysaa qofku inuu wax bartay keliya macno ma samaynayso laakiin waxbarashadiisa inay wax u tartaan macno samaynayso waxaa la rabaa qofku markuu wax barto waxbarashadu inay ka beddesho waxyaalo fara badan waa asoo beddel waxaa waxbarashada lagu leeyahay waxaa la fareem garaynaya ama la jahaynayaa maskaxda qofka bini aadamka oo aad u adag in la bedelo yaa la bedelaya la rabaa inay mustaqbal iyo jaalasi marka maanta waxaa la rabaa waxbarashadaas aad barateen inayn ka muuqato laynka dareemo oo ay yacni ardayga waa arday waxbartay kala hayaa sax ma waxaan u baahannahay inaan mustaqbal yeelano marka mustaqbalka ku dadaala inaan meel gaadhaan ku dadaala dadaalka hadda wada inaad sii wadaan qofkii diblom qaatay degree gaadho degreega master gaadho masterka laftiina tayo yeelato oo aad dhistaan dee bayska inuu dhismo weli miina gaadh akhriskaa la badiyo wax badan la qabto howlaad u baahantay waqtigaa dheer aad soo dadaasheen yuusan khasaareyn ka noqon yani ujeedaan u hadbeen intaas kadib waxaad magaalada Wardheer ama gobolka Doolaba kulliyadan aad baan ugu mahad celinaya ardayda ka soo qalin jabisa markaan shaqaalaha diiwaangelinta shaqaalaha iyo waxaa inta la eegayo waxaa u badan waa Hon aad baan ugu mahad celinaynaa mas-uuliyiinteeda iyo kolleejka inta maamusha jaamacaddaas laftigeeda inaynu u dhugla kulliyadda caafimaadka hor bagaad nogala soo qayb gasheen waqtigiina inaad noo hurtaan farxadda ardayda iyo farxaddayada iyo farxadda waalidkaba waqti inaad nasaan oo nagala soo qayb gasho waan idinka mahad celinaynaa intaa marka laga tago waxaan rabaa halkan inaan bogaadiin ooga diro dhammaan qaybihii kala duwan ee xafladan quruxda badan diyaariyey hadday noqoto macallimiinta ardaydii guddiyadii kala duwanaa cid walba oo maanta xafladan quruxda badan diyaarisana halkan waan ooga mahad celinaya iyagana waxaan leeyahay jazaaka allah intaa marka laga tago kulliyo halkan waxaa ku qalin jabinaya saddex arday oo culumta kala duwan bartay qola waxay barteen culumta caafimaadka ay isugu jiraan diploma iyo degreeba qolana waxay barteen culumta accounting ama culumta aan naqaano xisaabaadka waxaa si guud halkan ooga qalin jabinaya tiro 164 ardayda farxadda innaga noo tahay sanadkan 164 arday
oo bulshada gobolka Doollo ah oo waxa weeyaan waxbarashada kala duwan ee diplomka digriga ba qaatay inay halkan maanta waxbarashadooda ku soo afmeereen iyagoo waqti dheer soo baranaya culumtan qaarkood ay soo baranayeen 4 sano qaarkoodna ay soo baranayeen 3 sano marka waan aad iyo aad baan anagu ugu faraxsanahay macallimiintii soo barbaarisay ee juhdiga gelisay ee wajiyada quruxda badan soo saartayna iyagana boqolkiiba boqol waan u mahadcelinaynaa si guud kulliyadan caafimaadka waxaa la aasaasay sanadkan taariikh tirsiga dalkan Ethiopia 2007 waxay hadda asaasan tahay muddo ah 11 sano 11 sano ay kulliyadan asaasan tahay marxalado fara badan bay soo mareen kulliyadan waa kulliyad mar walba garab taagan dadkeeda ma aha kulliyad laga raadiyo dhaqaale iyo ganacsi waxyaalaha fara badan waa kulliyad keliya loo aasaasay inay dad ku hubaysan culumta ay kulliyadu bixinaysa ay soo saartay keliya loo aasaasay juhdigii laga lahaa maanta anigu waxaan qabaa haddii dufcaddii tobnaad qalin jebinayso oo ay qalin jebiyeen dad ka badan 2,000 arday 3,000 arday dad gaadhaya 10 sano ee kulliyadu ay soo aasaasnayd annagu yoolkii online waan gaarnay alxamdulillahi rabbil caalamiin annagu waxaan ramaynaa 7 degmo gobolka Doollo dad ka soo jeedo bulshada ugu adeega inaan ku soo saarno waxa weeyaan dadaalkayga iyo juhdigayga waxaa farxad noo ah ardaydii ka qalin jebisay kulliyadda maanta inay xubnaha ugu sarreeyeen iyagu ka shaqaynayaan kulliyadii macallimiinka yihiin maamulka yihiin waaxii muhiimka iyagu ay maamulayaan marka muhiimka iyagu waxaa ah inaan annagu ardaydanada wax bari karno in aan annagu goobteenna joogno waa dheer inagoo joogna oon jijiga aadin oon adsaabo aadin oon harar aadin oon meel kale aadin inaan dhahno waan awoodna inaan wax baranno tiina waan ka midha dhalnay marka cid walba oo juhdi soo gelisay barnaamijkeena boqolkiiba boqol aan ugu mahadcelinaynaa ardaydan hadda nabadoo fadhida intooda badan boqolkiiba 90 tacaala isugu keenay xalfadan quruxda badan taasoo rabnay inaan farxadda kula qaybsano ardaydeena noo qalin jebinaysa culumta kala duwan ka qalin jebinaysa ilaahay bayna suurtageliyey inaad maanta halkan soo gaadhaan inaan maanta xalfadan quruxda badan iskugu nimaano inaan la qaybsano farxaddiina rabeyntiina haddii la ku sugalahay qaybaan ka noqono waxaan u hambaleynayaa dhammaan ardayda maanta ka qalin jebinaysa culumta kala duwan kuwaasoo ka qalin jebinayay kulliyadda Hon International waxaan leeyahay anoo ku hadlay magaca hoostaalka hambaliyo magaca lagu soo gaaray nabad waxaan jeclahay inaan mahadceliyo kulliyadda Hon oo xaqiiqatan qayb lixaad leh ka qaadatay horumarinta sektorka caafimaadka ee gobolka indhahay waxay u qabanayaan arday badan oo ka mid ah shaqaalaha hoostaalka kuwaasoo hadda shaqada ku jira isla markaana yacni diblomaha digrii qaatay kuwa hadda ayagoon weli qalin jebinin imtixaanaadkay qaateen darteedaan ku qaadanay baa jira kulliyaddu waxay qayb lixaad ka qaadatay horumarinta si guud culumda shaqaale ee gobolka taasoo dareemi karayno 10 sano ka hor meeshaan taagnayn inaan u doonano waxbarasho gobollo kale iyo caasimadda deegaanka iyo ka baxsanba xaqiiqatan waa guul si guul gobolka ugu soo hooyatay waxaan aad ugu mahadcelinayaa Maariin Najib oo xaqiiqatan ah qof committed ah aad hadula ku smoogel yahay iskugu howlay inuu wax ka bedelis ku sameeyo si guud waxbarashada gobolka si gaar ahna sektorka caafimaadka maadaama uu qofka fadhiyahay taa waxay dhalisay inaan cudurda shaqaale maanta oo saaka oo dhan ka shaqeynay boqolkiiba marka loo 78 noqdaan dadka soo baxay kulliyadda kuwaasoo ummadda bulshada hadda si yani tayo leh ugu adeegaya